Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan karinay qado. Qadadaas oo ah baasto. Baastada waxaan ka dhigay laba nooc, macaroni iyo baasto dheer. Taas iyada si loo kariyo waxa idiin sheegay ma ahan. Marka waxaan sameeyo kala maraq oo laba nooc ah. Nooc waxaan ka dhigay gaar oo basal ayaan ku daray iyo shishiid gaar baan u sameeyay. Maraqi waxaan u sameeyay gaar oo markuu aan gaar maraqi u dalacay waxaan shiiday yaanyadii iyo kabsarooyin waxaasna isku shiiday maraq baan ku daray. Maraqa gaar ayaan u sameynay maanta. Kadibna waxaan dabka saaray hilibkii oo aan rabo inaan gaar u mateeyo. Qadada waxaan ka dhigay qado kala gaar yihiin maaragtay suugadeeda iyo nooca hilibka iyo shishiid iyo maaragtay suugadii kala gaar baan ka dhigay. Anuu maanta si cusub u sameyn doona qadadan. Waa qado cusub baastoyin la isku daray macaroni iyo baasto dheer ayaa isku dhex kariyay. Kadibna waxaan u sameeyay laba suugo hilibkii oo gaar ah iyo maraqii oo gaar aan u khaleeyay. Hadda hilibkii wuu soo bislaan rabaa. Wuuna soo khaleysmi rabaa waa hilibkii oo ah veal steak oo beef ah. Gaar ayaa u sameeyay. Maraqiina waxaan u sameeyay gaar suugadii waxaan ka dhigay suugo khaleysan. Kadib baastadii ayaan waxaan rabaa inaan korka ka saaro si aan maaragtay ovenka haddana aan ugu celiyo. Waa maanta qado aan cusub oo aan rabo inaan maaragtay marmarka qaarkood aad sameysataan. Maxaa yeelay way macaan tahay. Aad iyo aad bay tahay qado fiican oo macaan. Labada baasto waa isku dhex daray. Baastada dheer waan kala jabshay kadib waa isku dhex kariyay. Kadibna waa isla hagaajiyay. Waxay noqotay qado aad iyo aad u macaan idinkoo tijaabiya. Maraqeeda waxaan ka dhigay laba nooc oo maaragtay ovenka raba inaan hadda geliyo. Waxaan saarayaa suugadii. Kadibna waxaan saarayaa hilibka sida maaragtay pizza-dii oo kale ama sidii bahashii la oran jiray. Adigu waxa waaye baasto la rabo in ovenka la geliyo ay cabaar ovenka ku jirto ilaa iyo xoogaa inay ovenka ku jirto ayaan ugu talagalay 30 daqiiqo meelahaas ayaa ovenka gelinaynaa. Haddana waxaan saaraynaa hilibkii awal suugadii baan korka ka saarnay laba jeer. Haddana hilibkii aan saarayaa oo gaar aan u mateeyay. Ugu dambeyn hilibka markaan korka ku dhameyno waxaan ku bilaabaynaa oo saaraynaa bahalka cheese. Cheese-kii baan hadda ku wadnaa. Marka qadada maanta waa inay soo tijaabisaan waa qado aad iyo aad u macaan. Soo tijaabiya. Aniga idin soo tijaabiyay idinkuna soo tijaabiya qado macaan badan weeye qadadan. Waxaan saaray hadda cheese-kii oo ku socota inaan maaragtay geliyo ovenka ayaan ku talagalay. Hadda waxaan geliyay ovenka. Waxaan ugu talagalay inay ku jirto 30 daqiiqo. Haddana waxaan ka soo saaray ovenkii. Waxayna noqotay alaabta sidaas u quruxda badan. Macaankeedana ma laga sheekeyn karo. Maanta waxaan rabaa inaad tijaabisaan qadaas macaanka badan. Anaa soo tijaabiyay. Waxaa weeye maanta baasto laba nooc ah. Maraqii oo maaragtay gaar laga dhigay laba nooc laga dhigay. Ayadoo dhan maaragtay waa afar kalar. Intaa ayay ku dhamaatay hawshii baastadaas. Waxaan rabaa idinkuna si aan u soo badiyo in aad like saartaan oo subscribe saartaan oo share dhahdaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.